wadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shiila ee aan noogu barateen ee aan la kala shaandhayn jirin ee aan laga reebi jirin waxa uu danta ah dictatorada iyo kaligitalisyada iyo dadka nacab inay xaqaa'iqa ka jira gudaha wadankooda iyo deegaanadooda ay maqlaan. barnaamijkan maanta aynu ka hadlaynaa wuxuu noqonayaa ciwaankiisu ku-tiri-kuteen ama disinformation. waxaana isugu kin xidhayaa 3 meelood oo Soomaalida laga soo weeraro. ta koobaad oo ah dowladda Imaaraadka Carabta iyo halka ay ka taagan tahay arrimaha Soomaaliya iyo taariikhdiisa iyo waxa ay u taagan tahay. ta labaad oo aan idiga warrami doono Kenya Daily Nation journalka la yiraahdo cidda leh iyo waxa uu ka shaqeeyo iyo sida uu u shaqeeyo iyo TV-ga la yiraahdo 24 ama 24 ee Saudi Arabia ka soo baxa oo Soomaalida ku tilmaamay inay yihiin dad maata ah oo baahan oo bilaa aqoon ah oo dowladda Qatarna ay ku khaldantay inay siiso dhalashooyin. saddexdaa qodob ayaan isugu kin kashkaashi doonaa. aynu ku bilowno Imaaraadka meesha la yiraahdaa Liibiya, meesha Yaman, meesha la yiraahdo Jasiiratul Waqwaaq ee Somaliland. saddexdaaba dhulka ayay dhigtay. Juba waxaa ku dartaa meesha la yiraahdo Puntland iyadana ay dekedeeda xayireen. Cumaan ku dar, Masar ku dar, intaaba dekadahoodii nimanka soo xiray waa nimanka aad taqaanaan ee Imaaraadku shirkada ay leeyihiin DP World la yiraahdo. cumaan lafteedu iminka ayay iska saareen dibna ugala noqdeen kontraagii dekada Djibouti ninka haystaana waa kii hore isaga saaray ee ka tuuray dooraale markuu arkay wax allaalay wax manfaco loo soo wada inaanay jirin ee dekadaha uu la rabo in la wada xiro ay shaqayso dekada keligood iyagu ay leeyihiin ee halkooda ugu taala. waa dadkii dagaalka geeyay wadanka Syria la yiraahdo Islaamka ah burburiyay wadanka Ciraaq arkaysan nimankii Sunniyiinta ahaa ee dagaalamayay nimankii burburiyay weeye inqilaabka ka dhacay Saudi Arabia dhexdiisa ee la inqilaabay ninkii waliil ahdiga ahaa ee hore Mohammed bin Naif. waa Imaaraadka ninka haysta ninka ee keenay inankan yar ee wax magaratada ah ee meesha dhex wareegaya. inqilaabkii militariga Turkiga ku dar iyaga ayaa ka dambeeyay. marka waa destructive force anti-Islam. waa dad wuxuu burburinaya ee aan garanahay ninba si nidaam dowladeed loo dhiso wax allaale waxa ay ku xidhmaana waa wada noocaas ama ka Puntland jooga ahaado ama Muuse Bixi ama Silaayo. wax allaale waxa ay isku xidhmaan waa dad ay isku caqliyad yihiin oo sida iyagu ay doonayaan ula hadlaya allana hogaaminayo sida xoolaha ama neefka geela ah. Yaman baan la dagaalamay ku dhawaaqaya Ethiopia iyo Masar ayaa isdilaya. Masar raaca maxaa dano noogu jirtaa meesha? su'aashaas ma isba weydiin kartid waayo waxa tahay sayid iyo cabid nin iyo ninkii lahaa ayaa laga dhigay. intaa kuwa wuxuuda aynu ku dhaafno Kenya meesha la yiraahdo Daily Nation waa journal la kiraysto. waxa ciwaankii ugu dambeeyay ku soo baxay Soomaaliya ku saabsanaa farmaajo iyo Qatar Soomaaliya hal laga badbaadiyo. ninka hadalka ku qoray ee xisbigan wada jir haysta marka aad dib isaga u eegto ama New York Times ha lagu qoro ama Telegraph kale ha lagu qoro ama meeshii la doono ha lagu qoro ama Al-Arham ha lagu soo qoro ama Sharq al-Awsat ama Hadwanaag News ha lagu qoro. hadalku qofka uu ka soo baxo baa la eega ee wax macna ah oo ku fadhiya in journal wax lagu soo qoraa ma jirto. waa disinformation kamana tirsana journalada caalamiga ah ee credibility-ga leh ee wuxuu tixraac leeyihiin kana xishooda inay subcadoodu ka lunto. waa journal kuwa Soomaalidu qorto mid la mid ah oo lacag lagu kala gurto. haylaawina Cabdiraxmaan ninka la yiraahdo xisbiga wadani Jasiiratul Waqwaaq waddanka la yiraahdo wadani xisbigaas mucaaradka ah haysta barigii lagu soo sawiray isaga iyo inuu Cumar Rashiid oo ag fadhiya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo la leeyahay shir ayay ku wada galeen 3 cisho gudahoodna ay dib ugu soo qoreen inta xaggan kale lacag ka qaateen. khalad naga dhacay ayuu ahaa arrintaasi oo maalin Sabtiga ayaana loogu qaaday. ma aha macnuhu ee waxa weeye editorka ama tafatiraha umbaad waxooga hayso aad u dhiibaysaa oo intaa kugu soo qoraya. marka kaasi waa qayb ka mid ah propagandadii iyo disinformationka Imaaraadka iyo Kenyaatiga labadaaba dadka ay adeegsadaan ay ugu isticmaalayaan. marka aad eegtana mar walba waxa negative-ka ah ee Soomaalinimada kala burburinaya ayaa lagu shaqaysiyaa dadka ee maaha wax la doonayo dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh oo dowladaha ogoodeen ee dhaqan iyo xoog Afrika xoreynayay maaha. dagaaladii Soomaaliya ay galeen ee Xaaji Cabdulla Xasan ninkii Sheikh Cabdulla Xasan lagama sheekeeyo. taariikh 88 ka bilaabatay iyo dadka af Soomaaliya ku hadla ayaa la inagu wareejinayaa. Imaaraadku aan xoroobin aan dowlad noqon bay inagu dowlad ahayn. waa ogtiin xajka markii ku duulay Portugiisku dadkii difaacay Soomaali bay ahaayeen dowlad Cusmaaniya way ku qorantay ilaa imika mataaxifta meesha imika la furay ee Sofia hadda tagto buugta ku jirta raggii ka dagaalamay ee Yemen ku joojiyay boqorkii Portugalka ama Portugal
soomaali bay ahaayeen cid taa ka hadashaa ma jirto ee waxaa lagaga sheekeynaya un gaajo iyo baaho iyo hal la kala qabto iyo hal la caawiyo iyo waa dad xanuunsanaya iyo waa dad buka iyo isma maamuli karaan waxa la ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisa la eega qatar iyo turkiga balalka ay soo gaarsiiyeen dhaqaalaha iyo xorriyatul qowlka iyo wadamadooda iyo sumcadda ay maanta ku leeyihiin iyo horumarka dadkoodu gaadhay iyo hantida ummadooda loo sameeyey iyo sumcadda iyo aqoonta la geliyey u fiirso imaaraadka whatsapp kan ku wada hadalo waa ka mamnuuc waayo xorriyatul qowl lama ogola kun qof ayaa u xiran 500 oo qof dadku dhowna jinsiyadii ayaa lagaga qaaday waa iyaga dadkooda dhexdiisa sidaas inagu ma inaan oran United Nationska iyo Human Watchka ayaa isku raacay meesha sidaas marka waxa aynu kaga dayano iyo wax inaga yaala ma jiraan ama maamul goboleedha soo kiciyaan ama Musa soo kiciyaan ama Dina soo kiciyaan ku noqo xakan kale Saudi Arabia waa arkiseen wiigi hore hoosta ayaa idin soo dhigi doonaa linkiga isagoo af Carabi ku baxaya waxa Soomaalida ay ka sheegayaan wuxuu Soomaalida waa propagandadii saddexaad ee lagu waday waxa loo qaadayaa meesha la yiraahdo Liibiya ay ka soo dagaalamayaan xaqaaquna waxa weeye Saudi Arabia Imaaraadku dadka ay qaadeen waa Colombia waa Wagner waa askartii Ruushka ahayd calooshooda shaqaystayaasha ahaa waa Chichiwiidkii Suudaaniga waa ciidanka Masaarida waa ciidanka Chad meel aynu ka soo galay ma jirto laakiin waxa la inoo bartay inay dad juhala ah oo la jahabaabin karayo taa waxa inooga sii daran oo ka sii liita Soomaalida labadan dowladood ee Imaaraadka iyo Sacuudiga ee dagaalka inagula jira hadallada oo halka ay naga lahaa ninkii commentator-ka ahaa TV-ga markuu ka hadlayay way qiimo beeshay ayuu way qiimo beeshay joorna way qiimo beeshay jinsiyadii Qadariyiintu citizenshipki wadaninimada ay bixisaa way qiimo beeshay waayo imika waxay maraysaa darajad heer qofka Soomaaliga ah jinsiyad la siiyo qadar ayay gaadhay ninka la hadlaya gadariga ma aha ee la yasaya in gumeedka lagu sheegaya waa Soomaalida intaas oo taariikh ah soo taxnay ninka ku sheegayana waa ninka isagoo cid cirsilada fadhiya ee reerku ay isku kor dhaxlayaan ninka Sacuudiga ahi markuu ka hadlayay meeshaas TV-ga 24 ama 24 wuxuu jinsiyadda waxa la siiyaa dad nool oo aqoon leh oo waxbarasho leh oo mufakiriina oo aan baahnayn oo taariikh leh waa marka la akhriyo hadalkiisa macnaha fasiraada ka soo baxaysa oo wadanka wax u soo kordhinaya ee maaha in Soomaali baahan oo gaajo hayso oo burburay oo aan tala lahayn waxaas oo dhan waxay ku muujinaysaa cadaawada loo hayo jinsigaaga ninka ku dhadhabaya ama Sacuudi ku dhadhabaya ama Imaaraad ku dhadhabayo waxa ku yaala waa inta cabiid ayaad ka qoranta inta uu kala xishooday inuu ku daro adoomo weeye laakiin inta adoon lagu yaqaanayba abadin laga adkaaday oo la haysto intaas oo dhan ayaa jinsiyadda lagu bixiyaa qofka inta leh laakiin qof gaajoonaya oo burburay oo baahan oo tabcaan ah oo aan xaq iyo xuquuq wax uu ugu soo kordhinaya aan jirin in la siiyo ma ahayn uu ku afgobaadsaday oo raano ixtiraam u hayo Soomaalida intaaba way yihiin laakiin aanu iska ixtiraamaya maadaama ay yihiin dadka baabay iyagu isbaabiyay waxaas ayaa laga soo deynaya national ay international TV oo laga hadlaya ummadda Soomaaliyeed hoos baan idin soo dhigaya linkiisa ummadii kale ee islaamka ahayd ayaa ka carootay oo ka hadlaysa qof Soomaaliya oo waxa ay ka hadlay soo hadal qaadayana arki mayna ee macna darro kale ayaa ummadii dhalinyarada lagu dhex wareejinaya ummad kale ayaa ka danqanaysa taariikhdeena iyo jinsigeena hadayna inagu cageena ku istaagin meel bila maamula oo bila dawladda oo aan nidaam lahayn oo aan la ilaalin imika xitaa afkii Soomaaliga ayaa sii guraya way dawlad ilaashanaysa ma jirto waxa lagu soo daray afafka dhiman doona ee aan lagu wada hadli doonin ee cilada lagaga dhaqaaqi doono marka Imaaraad iyo sida la hadlayo iyo xuquuq male iyo xaq male in halka la gaarsiiyo waxa isna soo gaarsiiyay waa dadka noocaas ee badda Kenya ku shaqaysanayso badna Imaaraad ku shaqaysanayso badna Saudi Arabia ku shaqaysanayso ee waxa uu danqanaya oo kaliya tahay aqoontiisu isaga iyo jeebkiisa uu dhex fadhiya uma jawaabi karaan taariikh Soomaaliyeed inta meel soo fariistaan kuma dhacaan ee ka hadlaan waxa ay ahaayeen inaanay garanahayn bayba u badantay waayo wax ma garatadii ama wax xunbadii biyaha kor socon jirtay oo dadka soo kor martay oo iyadii doonaysa waliba in adiga wax ku farto oo ku xakuto oo ay tusaale ku noqoto meed maxaa u dambeeyay wiilkaan la siisto waxa la yaabay dani oo maalin dhawita laha sharciyada uu soo saaray ra'iisul wasaare ku simaha Soomaaliya imka ra'iisul wasaaraha ay sharci maaha aqoon darro ka weyn taa intay nooleyn ma inaan arag sharcigu waa kursiga iyo xafiiska iyo waraaqaha iyo dawladnimada qofka ku meel gaarkii shuruucdii in allaaliyo intii kii kale uu lahaa ayuu leeyahay sharciyan marka qawaaniinta la maro qawaaniinta waxa loo soo saarayaa qofku isagu ma baa noqonaya marka haddii qaanuun qofkaasi aanu soo gudbin karaynin qaanuun macnihiisa waxaan ka wadnaa xeer aanu hirgelin karaynin taa macnaheedu waxa weeye
meeshaba dowladi kama jirto waxaa la doonayaa in maamulka Soomaaliya oo dhan la isku soo laalaabo oo laynaga dhigo gegi bannaan aynu isku dhex xidhiyno sharci ma jiro baarlamaan ma jiro madaxweyne ma jiro wadan ma jiro kala guur weeye ma waydaan arkahaynin xaaladda meesha waxa laynagu wado oo dhan inay tahay in laynagu yidhaahdo nidaam ma lihin waxa ay Sacuudiga iyo Imaaraadku ku hadlayaan baynunay dadka joonaya oo wax magarata ah oo aan waxba garanin oo aan xaq u lahayn xataa in baasaboor ay wadamo kala siiyaan kaas ayaa sharci ah waxaanu leenahay war ummadda kala xishooda waxaana loo hortaagantiin ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhalinyarada khaasatan toosa oo mustaqbalkiinu yaanu ku xidhnaanin dad shisheeye dabada ka wadaan aanay dani inooga jirin dowladaha intaraska aynu wada leenahay wada qaybsanayno caalamka qof aakhira ku nooli ma jiro wadan walba dib taariikhdiisa weega muxuu inoo galay markaynu kala yaacnay markaynu kala burburnay dhammaantiin waa mahadsantihiin noodi kulantee